ninkani waan hubaa in muuqaaladiisa aad daawatay marar badan ay ka soo horbaxeen. waxa uu ku nool yahay nolosha qof kasta oo dunida saaran uu ku riyoodo, xitaa adiga iyo aniga. waxa uu kaxeeyaa gawaarida qaaliga ah, waxa uu dunida ku kala leeyahay qasriyo fara badan. waxa la arkaa isagoo la socota gabar qurux badan ka yar. markaad muuqaalkiisa aragto waxa uu egyahay oday duq ah, homeless ah, laakiin ma ahan. ilaa hadda dadku waxay ku wareersan yihiin qofka uu yahay. ma hadlo, mana bixiyo waraysi. inta laga arkayo waa isagoo ka soo degayo gawaaridiisa qaaliga ah, gabadhaasi qurxoon ay la socoto. waxa uu dalxiis tagaa jasiiradaha caalamka ugu qaalisan. nolol raaxo leh ayuu ku nool yahay. gurigiisa waxaad u malaysaa madxafka gawaarida, siday u yeelaan gawaarida noocyada kala duwan ee qaaliga ah. ninkani waxa uu qabto lama ogo, cid taqaano ma jirto. keliya waxa uu ka soo muuqdaa muuqaaladaasi gaagaaban ee adiga kaa soo horbaxaya, qof kastana sida uga soo horbaxa. waxaa muuqaalkani kula wadaagayaa qofkani qofka uu yahay, magaciisa dhabta ah, halka uu ku nool yahay, iyo shaqada uu qabto ee uu ku noqday bilyaneernimada. magaciisa dhabta ahi waa Ilan Tobiana, wuxuuna social media ku soo galaa magaca Zeus, wuxuuna u dhashay dalka Faransa. ninkani odayga hore ayuu u soo shaqaysay, wax kasta oo qaali ahna agtiisa ay ahaatay, hadday ahaan lahayd gawaari, guri, doomaha dalxiiska iyo saacadaha qaaliga ah. haddaba qiyaas adiga i daawanaya shaqada uu qabto qofkan: A. DJ-nimo, B. model, C. lawyer, ama D. investment. maxaa kuu soo baxay? jawaabta haddii aan kuu sheego waa lawyernimo. ninkani waa lawyer xagga guryaha ah, wuxuuna ku soo guda jiray 20 sano, wuxuuna investment ku sameeyay real estate-ka. lacagta ugu badan halkaasi ay ka soo gashaa. Zeus mar commentiga lagu weydiiyey sida uu ku xaqiijiyay guushan, waxa uu ku jawaabay: dadaal badan, weligaa ha isdhiibin. muuqaalada uu soo duubay waxay helaan million views, dadkana aad ay ula yaabaan. wuu degan yahay, mana buuq badno, kaamirooyinka isaga ayay ka daba cararaan, isagana marmarka qaar way soo duubaa. muuqaaladiisa inta ugu badanna sida ayay viral u noqdeen. sidoo kale waxa uu soo duubaa gawaarida qaaliga ee kala duwan. Zeus waxa uuna barayaa in wax kasta miraheeda aad godan doontid, laakiin marka horeyse ay tahay in dadaal aad bixiso. qof kasta oo maanta aad arkayso oo guulaystaa, mar baa jirtay oo aysan cidna ogeyn, dadaal fara badan uu bixinayay.